Assalaamu calaykum. Soo dhawaad saaxiibayaal meel kasta oo aad ka joogtiin dunida iyo daafeeda. Magacaygu waa Axmed Faarax halkaan nagala socotiina waa Himila Media Production. Saaxiibayaal maanta waxaan halkaan ku baran doonaa cashirkeennii toddobaad ama lesson 7 ee ahaa computer basic. Maadaama markii ugu keena dambeysay aan marinay lesson 6. Maanta waxaan baran doonaa cashirka toddobaad ee ah computer basic ama lesson 7. Haddaba cashirka toddobaad ee maanta maxaan ku baran doonaa? Cashirkan toddobaad waxaan ku baran doonaa saddexdan qodob ayaa cashirkeena maanta ku baran doonaa. Hagaag haddaba tusaale ahaan wax yar ayaan meeshaan kusoo sameeyey waxaas yarka oo meesha kusoo sameeyana keliya waxaa ka rabaa waxay tahay inaad ila fahantiin ujeedka aan kusoo sameeyey halkan waxaa kusoo qoray assalaamu calaykum soo dhawaad saaxiibayaal magacaygu waa Axmed Faarax waxaadna nagala socotaan Himila Media Production iyo weliba sidoo kale Himila High School waxaan halkan kusoo gudbin doonaa cashirkii toddobaad ee computer basic waxaadna ku baran doontaa qodobadan soo socda qodobka koowaad ee aan maanta baran doono ayaa waxaa la yiraahdaa sida loo sameeyo book cover ayaan maanta baran doonaa sidoo kale qodobka labaad ee maanta ayaa waxaan ku baran doonaa sida cashirka loogu soo daro link tusaale ahaan halkan hadda waxaa ugu jeedaa inaan link ku jiro link oo meeshan ku jiro linkaas hadii aan furana waxaan tagi doonaa cashir oo maaragtay linkiga ku xiran ayaa tagi doonaa sida cashirkaaga warqadaada wordka loogu soo daro link ayadana waan baran doonaa hadday ahayd warbixin linka ka soo qaaday iyo hadday ahayd cashir linka ka soo qaaday qodobka saddexaad ee maanta ayaa waxaan baran doonaa sida saacadda iyo taariikhda loogu soo daro warqadda tusaale ahaan warbixin aad qorayday warbixin markaad qortid waxaa rabtaa inaad warbixintaas si loo ogaado inay tahay warbixin maanta loo ogaado inaad kusoo dartid saacaddii iyo taariikhdii ayadana qaabka loogu daro waan baran doonaa saaxiibayaal iminkana aan isla aadno dhanka baraatikada annagoo saddexdan qodob u dul istaagi doono waayahay qodob koowaad ayaa waxaan ku baran doonaa sida loo sameeyo book cover sidoo kale waxaan baran doonaa sida cashirka loogu soo daro link iyo sida saacadda iyo taariikhda loogu soo daro warqadda la yiraahdo wordka ayaan baran doonaa tusaale ahaan inta aanan ka bixin wax yar inta aanan ka bixin waxaan rabaa hal wax inaan tuso dadaa waxaa laga yaabaa inay isleeyihiin book coverka waa nuucay halkaan fiiri hadda meeshan waxaa ugu jeedaa book cover diyaarsan hadda meeshan ugu jeedaa bookgan waxaa la yidhahdaa computer basic waana book 1 waxaa waayana cashirkii toddobaad ama lesson 7 sidoo kale waxaa ujeedaa waxa watermark la yidhahdo inuu wato halkan maxaa ku qoran Axmed Faarax halkan waxaa ujeedaa inay ku qoranto waxa la yidhahdo Axmed Faarax meesha waxaa ujeedaa inay ku qoran tahay lesson 7 halkan lesson 7 ayaa ugu jeedaa sidoo kale waxaa ujeedaa book waxa waaye computer basic waxa waayana book 1 waaye hagaag coverka horta lagu sheegaa saatan waa qaabkan si loo sameeyo waan baranayna sidoo kale waxaa jirto waxa la yiraahdo link waxa la yiraahdo ayaa jirto cashirkan waxaa ujeedaa meeshan waxaa yaalo link si aad u hesho cashirkan oo dhammaystiran fur linkiga hoose linkiga markaas u furtidna wuxuu ku geey doonaa cashirkan ayuu ku geey doonaa ayadana qaabka loo sameeyo waan baran doonaa saaxiibayaal waayahay bal iminkana aan isla aadno dhanka iyo practicada ayaan haatanna isla aadaynaa saaxiibayaal ugu horreyn waxaan soo kicinaynaa warqad cusub oo la yiraahdo new Microsoft ayaan tegaynaa kadibna waxaan kasii tegaynaa Microsoft Word ayaan kasii tegaynaa warqadda cusub markaas aan usoo furno ugu horreyn horta waxaan samayn doonaa inaan sameyno waxa la yiraahdo cover sidoo kale inaan kusoo darno watermark inaan kusoo darno ayaan rabnaa saaxiibayaal oo aan hadda book cover dhammaystiran aan diyaarino ayaan samayn doonaa ugu horreyn waayahay marka hore waxaad tegaysaa halkan ay ku qoran tahay design markaad tagtid halkaana kasii tegaysaa saaxiibayaal halkan waxaa ku qoran page border page color iyo watermark ayaa la kala yidhahdaa marka hore bal horta warqadda hadda waatana warqadda caddaan waa hadda waxaa ujeedaa warqaddan inay tahay mid cad ayaa hadda ujeedaa marka waxaa ka rabnaa bal horta inaan marka hore isticmaalno waxa la yidhahdo page color oo warqaddan aan color soo geliyo waayahay aniga tusaale ahaan colorkan ayaan aad uga helaa colorka markasta aan ugu jeclahay ayaa soo qaadana adigu markasta colorka aad jeceshahay ayaa soo qaadan sidoo marka hore waxaan sameynaa waxa la yidhahdo page color ayaan sameynaa pageka sidan ayaan u sameynaa waxaan samayn doonaa waxa la yidhahdo page border oo ah inaan pagekan aan u sameyno frame ayaa pagekan u samayn doonaa aniga framekan dhibcaha ayaan ka helaa asaga kadibna kusoo dari doonaa hagaag saaxiibayaal hadda waxaa ujeedin in aan sameynay waxa la yiraahdo frame aan buuggan saarnay oo loo yaqaano page border waxa loo yaqaano sidoo kale waxaan sameynay page color oo warqadda waxaan soo gelinay color waayahay waxaan sameynaynaa marka maadaama inta aan sameynay waxaa warqaddan kusoo dari doonaa waxa la yiraahdo watermark ayaa kusoo dari doonaa tusaale ahaan iskuulka aad dhigatid intiisa badan buugaagta oo daabaco waxaad ku aragtaa inay halkan ku qoran tahay magaca iskuulka inuu ku qoran yahay ayaad baartaa inta badan aad ku aragtaa tusaale ahaan sida hadda aniga warqadda hadda aan kusoo tusaayo warqaddan sida hadda aan kusoo tusaayo meeshan hoose waxaa ku qoran Axmed Faarax halkan maxaa ku qoran Axmed Faarax ayaa ku qoran Axmed Faarax marka sida iskuulka hadhow adiga amaata aad dhigatid waxa laga yaabaa buugaagta cusub daabaco inuu halkan magaciisa ku qoran haddii aad dhigatid ablaalo kale inuu ablaal ku qoran almaamuun haddii dhigatid almaamuun caaisho iskuulka markaas soo buugaagtu asagu leeyahay inta badan watermark oo isticmaalo waa iskuulka magaciisa marka aniga hadda kan waxaa ku qoray magaciisa aniga Axmed Faarax ayaa watermark sidoo kale waa ugu dhigi karaa Himila High School waa ugu dhigi karaa Himila Media Production waa ugu dhigi karaa marka watermarkaas qaabka loo sameeyo ayaa markaa noo dhima hadda waxaa isticmaalnay
color iyo border labadaas waa isticmaal watermark waa tan ayadana kama agdhow halkan waxa ugu jeedaa inay kugu qoran tahay watermark halkan waxa ugu jeedaa inay kugu qoran tahay watermark ayada ayaa soo furaysa marka soo furtid halkan ay ku qoran tahay saaxiibayaal halkan ay ku qoran tahay custom watermark ayaad ku dhufanaysaa custom watermark ma ku dhufatid sidaan haduu kugu soo baxo hadda meesha waxa ugu jeedaa waxba lagu boqol karo hadda meeshan wax haylaada saaran waxba lagu boqol karo waxaan ka dooranaysaa hadda marka wuxuu ku yahay no watermark ayuu ku yahay no watermark waxaad dhigi kartaa picture watermark aad dhigi kartaa hadii aad sawir maanta aad watermark u dhigi karto ugu dhigi karaysaa sidoo kale aniga waxaan rabaa text watermark anina hadda qoraal ahaan aan sameeyo ayaan rabaa meesha marka maxaa sameyn doonaa meeshan waxaa sameyn doonaa aniga dhowr qodob ayay kartaa axmed faarax waa dhihi karaa axmed faarax waa dhihi karaa waxaa kaloo dhihi karaa bal hadda axmed faarax marka ay yidhahdo okay ay yidhahdo okay yidhahdo bal si ay ila arkin hadda maxaa ujeedaa meeshan waxaa kusoo darsanay axmed faarax ayaa kusoo darsanay axmed faarax inaad meesha kusoo darsatay ujeeda mar rabaan waxaan dhihi karaa waaye waxaan rabaa dhihi karaa waxa la yidhahdo himilaha iskuul aan rabaa dhihi karaa custom watermark tagi magacaana iska tiri magaca marka iska tirto waxaa leedahay himilo high school aan dhihi waaye himilaha high school marka tiraahdo saaxiibayaal okay ku dhahaysa waa ka maxaa ujeedaa himilaha high school sidoo kale saaxiibayaal meeshan ayaa waxaan ku qori doonaa qoraal meeshan ayaa waxaan ku qori doonaa waxa loo yaqaan qoraal ayaa ku qoraynaa si maartay buugow yahay oo soo sheegno iyo waliba casharku ka hadla waxaan leeyahay computer basic book 1 aan leeyahay book 1 maxaa waaye computer basic waayahay inta markaa samaysa xabiyaal hadda book 1 aan kusoo qorto computer basic waxaan samayn doonaa horta marka hore size-kan ayaa weyne doonaa kadibna waxaa dhihi doonaa control e ayaa dhihi doonaa so ay ugu tago centerka haddii aad shortcut aad isticmaalayna halkaas ayaad ku dhufanaysaa waa ka hadda marka waxaa ujeedaa inuu buuggan yahay book 1 waxa waaye waxa loo yaqaano computer basic waxa loo yaqaano hagaag size-kan waa kusoo dari kartaa waxoogaa waa soo weynaysan kartaa waxaan sidoo kale ku samayn karnaa inaan dhahno bold inaan dhahno oo maaragtay far waaweyn ka dhigno oo ku samayn karnaa control b aad isticmaal haddii kale bold aad dooranay waa kan aad samayn kartaa underline inaad sameyd oo hoosta aad ka xariiqdo inaad underline sameyd oo buugga asan hoos ku xariiq waa samayn kartaa sidoo kale italic waa ku samayn kartaa line waa ka dhigi kartaa line waa kan waa ka dhigi kartaa waaya aniga intaa hadda ku samaynaa inta marka ku samay kadibna enter ayaa leeyahay waxaan leeyahay lesson 7 aan leeyahay lesson 7 waa kan lesson 7 marka lesson 7 tan ayadana waxaa u yeeli doonaa color gaar ayaa u yeeli doonaa oo colorka hore kuma sii dayi doona insha Allah ayadana color gaar ayaa u yeeli doonaa waa ka hadda meesha maxaa ugu jirta hadda waxaa baranay si loo sameeyo book cover saaxiibayaal haddii aan casharka boobsiinayno ka raali noqdo inaan casharka boobsiino ayaan rabnaa maadaama hadda practical badan aan rabno inaan sameyno waa inaan casharka boobsiino si marka qofka casharkii kooban ay u fiirsato kadibna ay practical u sameeyo ayaan casharka u boobsiinaynaa hadda waxaa baranay si loo sameeyo waxa la yidhaha book cover markaa sidaad samaystid waad seefan kartaa marka waad seefan kartaa filekaasi tagay kadibna save as adhena save as markaa dhan browser kasii dooranaynaa browser marka kasii dooratid aniga hadda yartaan wuxuu soo qabtay desktopka aniga soo qabtay adigana meesha airto ku save kartaa desktop markuu soo qabto magac waa u bixi kartaa waxaa dhigi kartaa waxa loo yaqaan book cover aa dhigi kartaa book cover waa dhigi kartaa wixii markas adigu airto ayaa u bixi aniga hadda book oo kale leeyahay markii aan sidaan sameeyo kadibna waxaan samayn doonaa haddii aan u rabo wordka ina warqadii ahaato bookgas aan ku daro wordkas ayaa u daysanaa word document haddii aan rabo pdf na waa idiin sheego saaxiibayaal pdf kaas ayaan dooranayaa sidoo kale waxaa u dooran kartaa waxa la yidhaha web page waa ka dhigi kartaa iyadana waa samayn kartaa sidaas oo kale sidoo kale waxyaaba badan ayaa warqadan ku samayn kartaa ani markaad warqada pdf ahaan ayaa u qaada kadibna waxaan leeyahay waxa loo yaqaano save ayaan leeyahay warqada ii save garay ayaan leeyahay waatana warqada hadda wuxuu igu save garay pdf ahaan waatana warqada iyadoo pdf ayaa laysoo bandhigay waa ujeedaa saaxiibayaal waa computer basic waa lesson 1 sidoo kale watermark waa himilaha isku halkaas waxaan ku baranay sida loo sameeyo waxa la yiraahdo book cover sida loo sameeyo halkaas ayaan wabixinaa saaxiibayaal waxaan ku xiji doonaa bal qodobka labaad ee maanta bar doono muxuu yahay qodobka labaad maanta aan bar doono muxuu yahay waya qodobka labaad ee aan maanta bar doono ayaa wuxuu yahay sida casharka link loogu soo diro tusaalahan casharka ayaad waxa ujeedaa inaan link ku soo diro linkaas markaa furana wuxuu geynaa waxa loo yaqaan casharka kale ayuu geynaa linka markaa waxaa laga yaabaa qaar isdhaayaan linkiga ma furmay linkigan waxaa isla qabanaysaa control kadibna waxaa leedahay click ayaa ku siinaysaa control click markaa tiraad halkan waxaa ugu jeedaa index file inuu soo geliso waa kuwaana casharka waa kuwaana assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal halkaas ayuu casharka video oo soo geshay hadda casharka hadaa play iraado si toos ayuu u shaqeynaa saaxiibayaal meesha hadana waxaan ku jiro meel kasta oo ka joogtiin dunida daafeeda magacaygu waa Axmed Faarax halka aan nagala socotiin waa Himila Media Production saaxiibayaal waxaan maanta halkan ka bilaabay ugu soo diri leed ayadana waan baranaynaayo qaab fudud waa kuwaana casharada hadda hayr controller kadibna kaliga waxa ka soo geshay inta ka soo geshay halka maxaa ugu jeedaa marka lesson 1 oo computer basic lesson 2 lesson 3 lesson 4 lesson 5 lesson 6 aad ugu dambeeyo oo ku jiro
waxaa ku jiro intaasoo cashir ayaa ku jirto waayahay qaabka marka weliba wuxuu kuu sheegaya indexkan location yaala ayuu kuu sheegay wuxuu ku leeyahay desktop yaala wuxuuna ku dhex jiraa faylka la yiraahdo Hemel High School ku jira waa computer basic casharkan waa computer basic ma computer software solution computer hardware ma waa computer basic qaabka linkigan aad u sameey lahayd ayadana waan baran doonaa waayahay saaxiibayaal warran waxaan tagaynaa desktop markaa taglaysiin nooca caadiinta ab new ku soo dhufanayna kadibna waxaan kasii dooranaynaa new Microsoft waayahay new Microsoft markaa ku sirto bal qodobka maanta sameynayna waxa waa sidee cashar loogu soo daraa link sida cashar aan link ugu soo diri leh ayaa baranayna marka hore waa inaan horta qoraal aan soo sameynaa qoraal sida hadda meesha ku soo arkayno kale waa inaan soo sameynaa marka waxaan tagaynaa lesson 7 aan tagaynaa warqadan wordka kasii tagaynaa wordka marka kasii tagno waxaan soo koobiye doonaa qoraalkan ayaa soo koobiyeysan doonaa control c adha kadibna waxaan tagaa warqadii aan desktop ku abuuray warqadan aan desktop ku abuuray ee new Microsoft ayaan soo furo doonaa waayahay tan hadda anigu baahinta waa taa ku sameeyaa kofarka warqadan ayaa soo furo doona warqadan hadda waa saaxiib waxba kuma ay qornaan Soomaa waaya waxaan ku baastay gareeyaa cashirka wato ku baastay cashirka marka qaybtaan linkigan oo dhan waa una qaybta waa tira waa ka baxaa meesha waaya inta marka ii qoranta hadda waxa u jeedaa cashirka maanta qaadanin ama soo waxa u jeedaa inay assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal magacaygu waa Axmed Faarax waxaan nagala socotaan Hemel Media Production iyo waliba sidoo kale Hemel High School waxaan halkan ku soo gudbin doonaa cashirka toddobaad ee computer basic waxaan ku baran doonaa saddexdaan qodob ani marka hadda qodobka ugu dambeeya ayaa dul taaganahay oo ah sida cashirka loogu soo daro waxa loo yaqaano link oo ah qodobkan labaad ayaan dul taaganahay sida cashirka ugu soo dari leed link ayaa dul taaganahay qodobkan ayaan dul taaganahay cashirka hadda markaan waxaan rabaa inaan link ku soo daro saaxiibayaal markuu sidaa ugu qorayo halkan waxaa iraaday si aad u hesho cashirkan oo dhameystiran fur linkigan hoos halkan rabaa markaan in linkiga soo geliyo wax weyn sameeyma waqti badan ayaa qaaday meel waxa ku dhufanaysaa halkaas ay ku qoran tahay insert halkaas insert ku qoran tahay ku dhufatay meelahan ay wax ka raadinaysaa meel ay ku qoran tahay link meel ay ku qoran tahay ayaa ka raadinaysaa halkan maxaa ugu jeedaa link inay ku qoran tahay halkaas ugu jeedo waaya kaligaas siinaysaa wuxuu ku yiraahday waxaad soo doortaa faylka artid inaan meesha soo geliyo faylka artid inaan meesha soo geliyo ayaan soo dooran ani hadda waxaan tagaa Hemel High School tagaa waxaa ka sii tagaa Hemel High School faylkaas soo fura kadibna waxa la faylkan waxaan rabaa computer basic markaas faylkaas u select garay asaga sii furmeed casirta computer basic oo dhameystiran si qofku meeshan ugu hesho waxaa meesha soo geli doonaa faylka computer basic kadibna waxaan leeyahay okay yale halkan maxaa ujeedaa waxa lagu soo diray link maxaa ujeedaa halkan link ayaa lagu soo diray marka link inaad halkan kore muxuu kugu soo qoraa bal qoraalkan kore ila arag waxa raashin ku soo dhaw maxaa ujeedaa wuxuu leeyahay si aad u soo furtid linkan control plus click waayahay saaxiibayaal halkan markaa joogtaa hal mar kale aan ku celsho dadka qaar waxa laga yaabaa labada himilo furaa waa maxay waxa sameysnaa ugu horreyn waxa ku yiraahdaa insert markaa tagtidina waxa ka tagayna halkaas ay ku qoran tahay link halkan markaa joogto faylka haduu ku yaalo desktopka soo dooranay haduu ku yaalo local disk C local disk D midka oo markaas ku yaalo adaa ka soo maartay dooran aniga hadda waxa ii dooran waxa loo yaqaan desktop ayaa ii dooran kadibna waxa ka sii doorana faylka ay ku qoran tahay Hemel High School kadibna waa asaga faylka ayaa sii fura kaliya leeyahay halkan maxaa u jeedaa waxa halkan soo galay waxa la yiraahdaa buugaag sidoo kale Hemel High School soo gashay ani buugaag marra faylka buugaagta marra waxaan rabaa inaan soo furo faylkan ay ku qoran tahay Hemel High School marka la ay sii fura halkan maxaa soo galay marka halkan waxaa soo galay computer basic computer hardware computer software aniga computer basic aan rabaa marka computer basic aan rabaa kadibna waxaa leeyahay okay waya linkiga markaa dul istaagto markaa muxuu ku leeyahay si aad u soo furtid linkigan control plus click uu leeyahay si aad u soo furtid linkigan waxay rabtaa gadaal ugu raacso control waxaa leeyahay control plus click aa leeyahay control plus click waya control plus click marka si aad u dhaado control plus click controlka qabanay controlka aniga gacanteeda controlka ku hayo Soomaa gacantan kale marka saas u sar meeshan maxaa u jeedaa waxa ku soo baxday gacana ku soo warmata far rabto inay meel furto ay ku soo waran marka hore maxay sayid qalinkaas ay marka qalin ay waa u jeedaa saas u taabareed controlka qabat meesha jaay maxay isku bedeshay gacan isku bedeshay hadaa click iraado wuxuu sameyn doonaa waa kana casirtu ii soo fur bal casirta ii shaqeynaya aan furo السلام عليكم سودوا صاحبيال meel kasta oo ka joogtiin dunida daafeeda waa ka hagaag casirku ii shaqeynaya صاحبيال hadii xogaa casirka hadda dhawaqiisa soo gaareen sida aniga soo gaareen oo kale karaal noqday sababtoo ah computerka waxa ku jira microphone ma soo gudbinayo codkaana computer microphone uu aqoonsan yahay qaab uu aqoonsan yahay earphone amal uu aqoonsan yahay marka hadii uu casirka uu soo gaareen dhawaqiisu sidaas ku ogtaan balse hadda anaga casirku muhiimadiisu waxay casirka inaan meesha linkiisa ku soo darno kadibna oo noo shaqeeyo oo halkan aad ka hesho casirka computer basic oo dhameystiran inaad halkan ka hesho ayuu ahay anaga muhiimada ah u socdo waaya qodobka inoo xigo muxuu yahay maxaan ku baran doonaa asagana waaya hal mar aan ku noqono casirkan hal mar aan ku noqono si aan u ogaano qodobka ugu dambeeya maanta waxaan ku baran doonaa qodobka ugu dambeeya waxaan ku baran doonaa sida loogu soo daro saacada iyo taariikhda tusaale ahaan warqada qortay
warqadaas markaa qorto marka waxaa rabtaa inaad warbaahin ama maaragtay warseed soo geliyo oo kale artaa marka waxaa rabtaa warqadan si aad ogaatid warqad xaqiiqa inay tahay si loo ogaado inaad kusoo dartid warqadan saacadii iyo taariikhdii la qoray wax weyn maaha iyadan isla casirkeena hadda ayaan ku noqonaynaa isla casirkeena hadda oo linki kusoo darnay ayaan ku noqonaynaa waaya saata markuu casirku yahay waxaa rabaa aniga warqadda inaan kusoo daro date and time inaan kusoo daraa rabaa sooma tusaale ahaan waxaan samaynaa warqadda qaybta u horeyda oo kale ayaa tega waxaan leeyahay halkaan oo kale tega ilaa warqadda hore gadaal waa ugu diri kartaa horena waa ugu diri kartaa halkaas markaad tagtid waxaa samaynaysaa halkaas ku rufanaysaa ku qortay insert kadibna waxaa kasii tegaysaa halkaas ay ugu qortay date and time halkaan markuu keeno wuxuu aragtay haddii aad rabtid maalintii bisha taariikhda inaad sheegtid halkan hoose ayaad dooranaysaa laakiin haddii rabtid inaad kusoo gaabidid taariikhda iyo maalinta bis haddaad kusoo gaabidid bishii hadda wuxuu leeyahay bish 7/28/2022 halkan waxaa ujeedaa Wednesday July 28 2021 inuu kusoo qoray ayaa ujeedaa haddii aan rabsas inaa irado waa kusoo dari karaa kadibna waxaan leeyahay okay hadda maxaa kusoo daray maalintii bishii iyo weliba waxaa kusoo daray sanadkii waa ka bishii waa waa July waxay maraysaa 28 ay maraysaa maalintu waa talaado sanadkuna waxa waaye 2021 sidaas ayuu ugu soo daray si ka duwan waan samayn karaa waxaan sameeyaa haddana isla insert ay tagaya kadibna waxaan kasii tagay halkan ay ugu qortay date and time marka kusoo daro halkan ayaa ka kliigsiina ku taana wuxuu yiri bish 28 sanadka 2021 sidaas ayuu isaguna ilay waya hadda marka waxaan kusoo daray waxa loo yaqaan date ayaan kusoo daray maadaama date aan kusoo daray waxaan rabaa inaan haddana kusoo daro waxa la yiraahdo time inaan kusoo daro waxaa isla tagay isla meesha insert marka kadibna waxaan kasii tagay date and time inaan kasii tagay ana hadda computerka saacad hadda way qaldan waxay sheegaysaa 9 saac 35 daqiiqo waliba 25 ilbiriqsi ayay sheegaysaa halka waa ugu jeedin halka hoose waad uga jeedin sida filaha saacada waad uga jeedin waxa ay sheegaysaa 9 saac 35 daqiiqo iyo waliba 38 ilbiriqsi waa ka saacada uga jeedin marka aniga saacada computerka ay masana balse sidaas ayaad ugu soo dari kartaa time kana sidaas ugu soo dari kartaa hadda warqadan waxay soo baxday bish 28 sanadka 2021 saacada ay soo baxdana waxa waaye 9 saac 35 daqiiqo iyo waliba